madaxda ummadaha adduunka samata bixisa ee hanka ummadnimo xambaari karta waa midda shacabkeedu u siman yahay fursadaha nololeed iyo shaqana ka sinta waa madaxda antooda kala qoqobin ee leh aragtiyaha ka caagan mansab gubaynta taasoo yeelkoodu yahay hiigsashada iyo la baratanka quruumaha horumar ee tanaaday halka hoggaanka aan la mahadin ama lagu tanaadin ee ummadi ku jabtaana uu yahay kan ku dhaqa dadkiisa kala xigtaysiga eexda cadaalad darrida iyo u kala abtirintooda soomaalida jamhuuriyadda oo jabkii kadib muddo badan naawilaysay kasoo dooga wixii soo maray waxa qayrkeed iyo dunidaba ka reebay hoggaan xumo waa hoggaan dhaayaha uu wax ku arkaa ay tahay dhuunta oo keliya iyo daymada xigtaysiga qaran kasta qasriyada looga arrimiyo wuxuu muraayad la iska daawado u yahay bulshada qaran wadaagta ah Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka muuqatay rajooyin soo wirwidhayay kuna jirta xilli laga filayo dib u soo kabasho iyo bulsho dowladnimada lagu walaaleeyo oo wax wada yeelata waxa taasi beddelkeeda madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud uu muuqda mid diyaar la ah dib u kala daadinta bulshada qarankeed oo mudnaa isku wad madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku iba furay hogaamintiisa marka labaad uu kala abtirinta qarankii loo doortay iyo qaraabo kiil aan daah saarnayn oo caalim iyo caamaba isku si ugu muuqda Xasan Sheekh wuxuu qasriga Soomaaliya la wareegay kii oo qaramaysan waxyaha uu ka kooban yahayna ay ka wada dhex muuqdaan hal doorka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax baratay dabadeed madaxweyne Xasan kolkuu kursiga la wareegayba wuxuu 100 maalmood ku qoyseeyay madaxtooyadii qaranka ee la qarameeyay waxyaha ay ka kooban tahayna si aan cadaalad ahayn wuxuu mansabyadii ugu tahay tii on la tarixin haybta qabiil ee uu ka soo jeedo warbixinteenan kooban ayaynu isku barbar dhigi doonaa Soomaaliyadii la wada lahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh la wareegay sidii ay ahayd iyo fiila Soomaaliyada xukunkeeda boqolka bari dhex joogo sidoo shacabka uu madaxweynaha u yahay ugu kala sadburiyay aan ku horeeyay qasriga iyo waxyihiisa kala duwan sideeba shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay ka soo jeedaan xilalka qasriga qaranka uga sinaayeen xilligii madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo saami qaybsiga xilalka madaxtooyada ee xilligii Farmaajo kow wasiiru dawlaha madaxtooyada Xasan Khaliif oo ka soo jeeday reer Aw Xasan agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Dheere oo isna ka soo jeeday Saad ku-xigeenka agaasimaha guud ee dhanka maamulka iyo maaliyadda oo isna ka soo jeeday Gaadsan ku-xigeenka agaasimaha guud ee dhanka siyaasadda Cabdinuur Maxamed Axmed oo isna ka soo jeeday reer Aw Xasan kaaliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Umar Sabtow oo isna ka soo jeeday beesha Jareer Weyne agaasimaha amniga madaxweynaha Gaashaanle Galmadow oo isaguna ka soo jeeday beesha Hawi agaasimaha maamuuska madaxweynaha Yuusuf Cadaani oo isna ka soo jeeday beesha Ogaadeen ku-xigeenka agaasimaha maamuuska Ibrahim Yunis oo isna ka soo jeeday beesha Hawiye la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin agaasimaha warfaafinta ahna afayeenka madaxweynaha Cabdirashiid Xaashi oo isna ka soo jeeday Dhulbahante ku-xigeenka agaasimaha warfaafinta Maxamuud Albashiiri oo isna ka soo jeeday beesha Madhibaan agaasimaha waaxda amniga madaxtooyada Carab oo isna ka soo jeeday beesha Hawiye agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Farxaan Soomaali oo isna ka soo jeeday beesha Hawiye agaasimaha guud Cabdi Fataax Sheekh oo isna ka soo jeeday 13 agaasimaha maamulka iyo maaliyadda Cabdullaahi Bashiir Majeerteen agaasimaha waaxda shaqada iyo horumarinta shaqaalaha Marwa Niciimo oo iyana ka soo jeeday beesha Hawiye 15 agaasimaha waaxda qorsheynta Sucaad oo iyana ka soo jeeday Baadicadde beesha Hawiye ku-xigeenka agaasimaha qorsheynta Mawlid Digil iyo Mirifle agaasimaha waaxda la socodka iyo qiimeynta Mr. Dubad oo isna ka soo jeeday beesha Mareexan Daarood 17 agaasimaha arrimaha federaalka Aydaruus oo isna ka soo jeeday beesha Isa 18 agaasimaha xafiiska mashaariicda gaarka ah Abubakar oo isna ka soo jeeday beesha Sheekha 19 madaxa odadka madaxtooyada Mr. Axmed oo isaguna ka soo jeeday Abargadir Hawiye xilalkan oo 22 madaxtooyada waxa xilligii madaxweyne Farmaajo la haybaha haybta guud 4 qof oo kaliya halka haybta gaar ahaaneed ama raaska uu ahaa madaxweynuhuna uu hal qof la ahaa jifo aan barbar dhigno beddelka madaxweyne Xasan Sheekh iyo markan saami qaybsiga xilalka madaxtooyada ee xilligan madaxweyne Xasan Sheekh aan ku bilaabay kow wasiiru dawlaha madaxtooyada Abshir Bukhaari Hawiye agaasimaha guud ee madaxtooyada Xuseen Sheekh Khaldigil iyo Mirifle agaasima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada Maxamed Amiin Hawiye kaaliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Cabdiraxmaan British Hawiye xoghayaha gaarka ah ee madaxweynaha Mr. Sakariye waa Hawiye 6 agaasimaha amniga madaxweynaha Gaashaanle Maslax isna waa
haybta madaxweynaha agaasimaha borotokoolka madaxweynaha Hinda Axmed Culusow Hawiye agaasimaha warfaafinta Cabdiqaadir Cali Dige isaguna sidoo kale madaxweynaha haybtiisa afayeenka madaxweynaha Mr Cabdikariin Cali Kaar Hawiye la taliyaha amniga qaranka Xuseen Macalin Mursade isna sidoo kale haybta guud madaxweynaha agaasimaha waaxda qorsheynta Mr Xuseen Yuusuf Cali واسقنا سيدو كله هوية أجاسمها واحدة شقة يهرمرين تشقالها النعيمة إبراهيم أبو بكر يدنا سيدو كله هوية أجاسمها الرمها بالشدة يحرير كدوينها محمد دوغو وسقنا سيدو كله هوية أجاسمها واحدة عافمات كي عسبتها كمدحتو يدا حسين محمد حسين سقنا هوية شانية طبعا أجاسمها واحدة هنتدور كمدحتو يدا سعاد يوسف صلاة يدنا هوية لحية طبعا أجاسمها معمول كي مالية أحمد عبد القادر بوح ديجليا مرفلة تطبيق طبعا أجاسمها حولها جود مستر محمد عبد خليف الصاق سيدي طبعا أجاسمها حفيز كمشاريع دقار كأه مستر أبو بكر السجون سيدو كله هوية سجالية طبعا أجاسمها واحدة أي تيجي أمني جودها علي جورة السجون هوية حلال كان أو يجو سجالية طبعا حل مدحتو يدا قرن كان حل كان كهول قلا وحمد حوينه حس الشيخ كوبيله لحية طبعا كم إذا سجالية طبعا كاسي صدقنا واحد كسو شيدان صومالي ذكله لحية طبعا كاسي حل مدحوينها هايبت جود لا أفر كم دي وراسك يتشفضه وكذا شيء مدحوينه حسن الشيخ أو هو عايزله warbixinteenan kooban ayaynu ku eegaynay farqiga u dhaxeeya qoysaynta qasriga iyo qaramayntii hore ee fiila Soomaaliya inta ka horeysa warbixino waaweyn oo inoo soo socda waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah iyo nooli kulante